qofka bini'aadamka ah waxa uu leeyahay dareemo badan oo gudaha ah sida jacaylka, farxadda, naxariista, xitaa xanaaqa iyo murugada, kuwa oo dareeno aan caadi ahayn oo nagula dhex beeray. sidoo kale xooluhu marka ay la macaamilayaan xoolaha kale mararka qaar waa kuwa isku naxariista oo waxay leeyihiin dareeno sida dareemaha aadanaha uu leeyahay oo kale. waa ay naga naxariis badan yihiin, bal ila daawo xayawaanadan naxariista badan, runtii aad baad u qiiroon doontaa. muuqaalkan waxaynu ku aragnaa ay soo aroorinaya biyo hareeraha malaa'iga. waxauna isku dayayaa inuu badbaadiyo, hase yeeshee waa meyd mana soo laabanayo. waa ay ka buuxdo ixtiraam iyo xushmad iyo naxariis. waxa uu isku dayayaa inuu ku soo nooleeyo waddadii hore uu dhaqdhaqaaqo, balse ma dhaqdhaqaaqi karo. fiidiyoan kale waxaynu ku aragnaa 2 faras oo ku kala jira 2 qol. haddase mid ka mid ayaa caawinaysa midda kale. faraska madow waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo midka cad. waxa uuna siinayaa cunto asagoo ku soo qaadaya afkiisa uguna dhex bixinaya daaqadda. halkan waxaynu ku aragnaa jijiil yar oo quudinaysa malaay. waxay siinaysaa cuntadeeda, waxayna quudinaysaa malaayga ku dhex jira barkadda, waxayna siinaysaa midkii u soo hormaro. badankeenu waxaynu ognahay in bisadaha iyo eeyaha ay ka dhaxeeyaan khilaafkaasuuna isku dayi karin inuu xaliyo qofna. fiidiyogan waxaynu ku aragnaa bisad yar oo isku dayaysa inay ii caawiso kana soo saarto duleel yar, balse way ku fashilmatay. kadib waxa ay gashay godkii si ay u soo bixiso una soo difaacdo. kadibna eeygii waa uu ka soo baxay. eeygan waxaa qalibay biyo daad ah oo saad u socdo. waxa uu ku jiraa xaalad dhimasho ah, balse saaxiibkiisa ayaa noqday geesiga saaxiibada, wuuna ka soo badbaadiyey. waana taas saaxiibtinimada dhabta ah. waxa uuna tusay inay tahay saaxiibtinimada mid aad u weyn. waxa uuna tusay qiimaha saaxiibtinimo ay leedahay. balse ma dareemi karnaa anaga oo bini'aadam xariistan aadka u weyn ee ku jirta ee caawinaya eeyga saaxiibkiisa. inakeena fiidiyogan kale waxaynu ku aragnaa qoys. hooyadu waxay badbaadinaysaa cunuga yar halka aabbaha uu lugta ka hayo hooyada. waxaan dhihi karnaa waa jaceylka iyo aabbaha iyo hooyadu u qabaan cunugooda. ku aragnaa bisad isku dayaysa inay iska bixiso galaas balaastiga oo wejiga u galay, balse way awoodi weyday ilaa uu u yimid eey kana bixiyey. waankan ama shimbirtan quruxda badan waxa uu dareemay eeygii inuu baahan yahay, wuxuuna u soo qaaday cuntadiisa gabal isagoo aanan daalin xitaa hal mar kana caajisin. haddaba daawade, waa sidee dareenkaaga marba haddii aad aragtay xayawaanadan qiiraha badan iskuna dayaya inay badbaadiyaan xayawaanada kale?